Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkaad nagala socotaan waa channelka Timaam. Sheekada maanta soo qaadan doona waa derbi jiifkii quusan waayey ee qadarinta helay. Daawasho wacan. Of love for Tupac Shakur Mosley, our Wiil derbi valedictorian jiif of the ah best ayaa late aad u ammaanay 2009. taageeradii uu ka helay shabakadda u istaagtay caawintiisa kadib markii loogu yaboohay deeq waxbarasho oo u dhiganta $3 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Wiilkani hoy-la'aanta ah ayaa deeq waxbarasho ka helay in ka badan 40 kolleej. Tupac Mosley, oo kasoo jeeda magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, ayaa guri la'aan noqday kadib markii uu aabihii geeriyooday sanadii 2017. Haddaba qoyskiisa ayaa waxay la kulmeen dhibaato dhaqaale, isla markaana bishii February ee sanadkan ayay u wareegeen hoy ku meel gaar ah. Wiilkan oo 17 jir ah ayaa sheegay in uu seexan jiray meel shamiito ah oo aad u liidata, balse uu sii waday inuu codsado iskuulada. Waxa uu u mahadceliyay dadkii taageeray iyo doorkii ay ka ciyaareen guushiisa. Haddii aysan ahayn saaxiibaday, qoyskayga iyo macallimiintayda oo i garab taagnaa ilaa xilligaas, meeqaamkan maanta aan gaaray ma soo gaarin, ayuu yiri Mosley. Waxa ay i siiyeen dhiirigelin ah in aan sii socdo, aanan quusan, ayuu yiri Tupac Mosley. In aan arko in shaqadii aan qabtay ay miro dhal noqotay waa mid qiimo badan, waana dareen wanaagsan, ayuu intaasi raaciyay. Isaga oo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Relay Egypt ee ku yaalla Memphis, ayaa Tupac waxa uu u mahadceliyay maamulihiisa iyo agaasimaha xarunta hoyga siisay ee For the Kingdom. Agaasimaha ayaa ka warhelay xaaladayda, waxa uuna noo oggolaaday in aan halkan joogno inta lacagta looga ururinayo, ayuu yiri. Inkasta oo nolol adag ku noolaa, ayaa haddana wiilkan waxa uu fasalkiisa mar walba ka geli jiray lambarka koowaad. Waxaa sidoo kale Tupac Mosley ammaan u soo jeediyay qaar ka mid ah macallimiintiisa. Balse Tupac oo toddobaadkan u wareegay guri uu isagu leeyahay, inkastoo la siiyay khiyaar uu ku kala doorto kolleejka uu doonayo in uu ku biiro, uu haddana doonayo in uusan ka dheeraan asxaabtiisa iyo qoyskiisa. Waxa aan halkan ku haystaa nidaam cajiib ah oo la igu taageerayo, waxay iga caawiyeen in aan guushan gaaro. Waxa aan joogayaa meel u dhow, ayuu yiri. Tupac ayaa waxa uu aqbalay deeq waxbarasho oo ay siisay jaamacadda gobolka Tennessee, halkaasi uu ku biiri doono kulliyadda injineernimada dhanka korontada. Waa naga intaas sheekadeenii xiisaha badnayd. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, rukuma channelka, sidoo kale gambaleelka furo si ay fariin walba kuu soo gaadho. Mahadsanidin dhammaantiin.